Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Daawadayaal soo dhowaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa cudurka COVID-19 iyo saameyntiisa kala duwan. Waxyaabaha aynu ku eegi doono barnaamijka maanta waxaa ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale, kuwa caafimaad iyo kuwa bulshaba oo uu keenay cudurka COVID-19. Dhaqaalaha guud ee adduunka dhan ayaa hoos u dhacay walow saameynta ay u kala badan tahay wadamada kala gedisan. Maadaama duruufaha iyo sharciyadaba ay aad isu bedelayaan, waa muhiim in bulshada lala socodsiiyo akhbaarta ugu dambeysay. Gaar ahaan gobolka Oregon ayaa soo saaray taxadaro muhiim ah oo loo baahan yahay inay bulshada si fiican ugu dhaga duleelaan. Xafladaha waaweyn weli waa mamnuuc. Sidoo kale waa muhiim in maaskaraadada wejiga la xirto mar kasta oo guriga laga baxayo, ayadoo laga foojignaanayo waxyaabaha sida sahlan u faafiya cudurka sida hindhisyaha iyo la isugu yimaado meel cariiriga ah. Gacmaha oo la dhaqdo ayaa aad muhiim u ah, yareyn kartana cudurka. Sidoo kale waa in lagu dadaalaa in la qaataa tallaalka fluga. Inkastoo tallaalka COVID-19 uusan weli diyaar ahayn, waxaa muhiim ah inaad qaadato tallaalka fluga caadiga ah si loo xoojiyo caafimaadkaaga guud, aadna uga badbaado in isbitaal lagu dhigo. Sababa la xiriira dhaqaale xumida uu keenay COVID-19 ayaa sababtay dad fara badan in ay ku adkaato inay iska bixiyaan kirooyinka guryaha. Sidoo kale cunto yari ayaa la soo daristay dad kale oo fara badan. Soomaalida ku nool nawaaxiga Portland, Oregon ayaa lagu wargelinayaa inay la soo xiriiraan Somali Empowerment Circle emailka ka muuqda shaashada, ayagoo markaas lagu xiri doono macluumaad muhiim ah sida Community Action oo ah organization amase hay'ad ka caawisa dadka guryaha kiradooda. Soo saaridda wacyigelintan waxaa iska kaashaday ururka xoojinta Soomaalida Somali Empowerment Circle iyo hay'adda Benistar, waxaana maalgeliyay hay'adda caafimaadka ee gobolka Oregon Health Authority. Macluumaadka videogan waxaa laga soo xigtay xarunta xakameynta cudurrada faafa CDC iyo hay'adda caafimaadka ee gobolka Oregon.